السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتي القالقة كسو دواذا channel كينا إكرام بيوتي نيو مال كستو أدونك كجوكتان سو دواذا أما أنت وحان وضع أرين آدو غنحي وانا ميد أني قبستاي walaalkay asad xaajiyo waxaan halkan ka leeyahay sorry ha u joojinin hore u soco channelkaadii soo cisho meeshaas ka sii wad maadaama dad xaasid ay jiraan oo youtube-ka ka dhaceen dib ma lahan ha u joojin walaalahaaga ay ku joogaan maasha Allah walaalay shalay aniga soo garab qabtay oo hadda maasha Allah meeshan joogay gaarsiiyay joogaan meesha meel ka sii fiican ay gaaraysaa insha Allah hadda channelkaadi 30,000 ayuu sii marayaa marka qofka kale oo dareemi karo waa aniga ay ugu dhacday aniga youtube-ka ayaa iga xirtay laakiin asaga qof ayaa ka dhacay taas ayaa iga sii daran aniga rulka ayaa burburiyay iskale laakiin asaga qof rulka ku socdo wuxuu ahaa maasha Allah marka meeshu joogan maasha Allah wala 100 kor u dhaafay isayla tahay anigana 60 ayaa maraayay marka walaalkay aad iyo aad ayaa uga danqaday arinkiisa qofki ka dhacayna qof fiican ma ahan maxaa yeelay qof walaalkiisa oo inta soo shaqeysana waa qof soo shaqadiisa waa oo dhididkiisa waaye la iskama dhigi karo waxa la soo galiyaa sababtoo ah qof walba dhididkiisa ayuu cunaa Soomaa waa shaqadiisa marka qof shaqadiisa iyo xoolihiisa inaad ka cunto oo ka dhacdo waa xaraan marka qof walaalka ah xoolihiisa ayaa qaadatay waxna ma ahan YouTube iskalena ma aha sababtoo asaga ayaa iskale waa channelkiisa asaga sameystay asaga u soo shaqeystay marka qof shaqadiisa ayuu qaatay marka asxaabteeda waxa idin leeyahay isla xaajiyo hadii aadan channelkiisa hore u arkina soo booqda inta ayaan soo saaraya sidaas ayuu u qorayahay marka aziz xaajiyo kor halo qaado hala soo celiyo meeshuu joogay hala gaarsiiyo insha Allah hadda 30,000 ayuu marayaa waxa uga dhiman 100 hala gaarsiiyo insha Allah cadawgana waxa leenahay agta hoose muu joojinaya asad insha Allah wuu soo naqayay asagana waxaan jabin ayaan leeyahay qofka markuu youtube-ka laga xirto asagoo meel fiican u marayo wuu niyad jabaya wuu dhibtoonaya aniga ayaa sidaas ah soo markii aad niyad jabto waxa soo galisi waxa dhan waa nacaysa waxa leedahay kaadi fiicnaa meel fiican ku maray ayaa laga qaatay laakiin insha Allah mid cusub marka hashana meeshii la ayaa ka sii wadaysa oo yaani dadku dareensiyo ma haysatid waxa haysataa maasha Allah walaalo fiican oo ku garab taagan marka insha Allah meeshaas ka sii wada u joojinin cadawga xaasinimada dadka bini'aadanka qaar way ku badan tahay wiilka miskiinka xoolihiisa inuu ka dhacana waa wax xun asaga ayaan iska lahaa u soo shaqeystay wax kale sheegay ma qaana sababtoo ah feel bad waa ka xumaaday aniga ayaa bakaygi markii laga qaato waxa uu dareemay xanuun sababtoo awal markii hore dhalantada ay la gadaal ayaga xanuunka ka dareemay oo waa tabaysaa meel cusub ina joogtay kula naqanaysaa waa adigoo guri kale oo qof tagay oo sida aragtana muu dhaqmin kartid marka sidaas camal ay kula naqanaysaa dad cusub aan baranaysaa dad new ayaa ku imaanayo dadkaadii hore oo taqaan way ka tagayaan marka adina waxa naqanaysaa new marka sidaas aan hadda igu dhacday asagana hadda uu cusub yahay soo marka sidoo uu la qabsan lahaa iyo ka fikiraya oo meesha ku soo noqonayo marka ha u joojinin meesha ka sii wad step by tartiib ayaa ku gaaraysaa dadkana asxaabta cusub tartiib ayaa kula qabsanayaan insha Allah adduunka sidaan aad iskaga dhimanayo qaraxa oo dadka aragto ku dhintay qofka intaas marka ma ku soo xisaabtamayo in la dhimanayo adduunka laga tagayo xoolo islaamada waxay yihiin uu qaadanayo oo bebeen oo ku qaatay hadda 100,000 oo bebeen iyo ka badan ku qaatay marka dhib ma lahan hadaba already waa ka gaaray maasha Allah guulku rabay xaaleena walaalkii insha Allah horumar ay ku rajeynayaan insha Allah asxaabteeda adinkana booqda intaas iskoognaana insha Allah